aan soo qaadano kulankii ugu muhiimsanaa ama kulankii ugu weynaa ee dunidoo dhan indhaha ku haysay waa kulankii Liverpool iyo Man United. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada Cagani Show ama waxaan halkan kusoo qaadan doonaa kulamadii 6 koox ee ugu waaweyn horyaalka kooxood ee lagu tariyo horyaalka inay qaadi karaan ama loo saadaaliyo inay qaadi karaan natiijooyinkeedii ay kala kulmeen shalay iyo maanta. kulamadii hadda u dambeeyay ee Manchester City ay ku badisay 4 gool. kulankii weynaa ee Liverpool Man United maxaa laga yiri Chelsea away ayay mar kale ku badisay, waa markoodii ugu horeysay ay ku badiso 4 kulan kadib. Tottenham ayaa ayadana dhinaceeda ka badisay, waxay ka badisay Sheffield United. Arsenal waxay ciyaari doontaa Monday night. kusoo dhawaada muuqaalka, magacaygu waa Cabdul Cagane, janaalka daawanaysid waa Cagane Janaal. haddii ay tahay markaadii kugu horeysay aad soo booqatay janaalka, subscribe noo saar. ma ogtahay malena lagalaawano lagalawa brother dhac la sii brother wax micna male aksiina salman meesh gududko ya subscribe waa isku log laamaano. Yes sasan gaara lineup-ka sidan. Liverpool waxay ku soo galeen Alisson, Arnold, Fabinho, Henderson, Robinson, Thiago Alcantara, Shaqiri iyo Gini Wijnaldum. afar waxaa ciyaarayay saddexdii nin ee caanka ku aad Liverpool waa Mo Salah, Mane iyo Firmino. Man United digeeda waxay ku soo gashay isla sidan. waa goalkeeper-ka waa De Gea, Harry Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka iyo Luke Shaw. dhacda difaaca dhexe ama qadka dhexe waxaa u ciyaarayay waa Fred iyo McTominay. saddexda hore ama weerarka cidda caawinaysa wuxuu ahaa Bruno Fernandes, Martial iyo Pogba. afar waxaa u ciyaarayay Marco Rashford. waayahay kulankii adduunka ay isha ku hayeen sidan ayuu ahaa ay lineup kusoo galeen. dadkoo dhan waxay ku filaayeen ama ay filaayeen Liverpool inay maadaama difaacyo dhowr ah Liverpool ka maqan yihiin, maadaama difaacyadii Liverpool ay sanadkii hore ku guuleystay dhaawac dartiis guryaha la jiifaan. Robinson iyo Fabinho inay kusoo galaan kadibna ay dadka Man United qaataan chance wanaagsan ay ka faa'iideystaan difaaca dhexe ee Liverpool ka duleelo kadibna sidaas goolal badan ka dhaliyaan. balse maysan noqon. Liverpool waxaa u soo istaagay Fabinho dhahay aniga wadadan xirtay, Robinson dhahay anigana waa idin caawinayaa. Henderson iyo Arnold waxay dhaheen meelna nooma dhaafaan. Alisson soo baxay oo yiri goolna xaggayga shabaqayga lama tabto. kulanku sida u socday ama Janis ama sida la maleynayay muusan noqon. wuxuu iska noqday kulan iska dhexdhexaada ama kulan iska boorina. waxay ku dhamaatay ciyaarta 0-0. sidaas marka la fiiriyo waxaa faa'iido ku qaba Man United oo heshay 1 dhibic kadibna Liverpool hore u baxday. 3 dhibcood ay weli hoggaanka ku wadaan ayay Liverpool champion ay ka sareeyaan. waxaa laga diiwaan geliyay Liverpool maadaama dhaawacyo badan hareeyay lagu tirnaayay kulankan inuu ahay kulankoodii ugu dhibka badnaa, balse Liverpool way isdifaaceen. Henderson iyo Fabinho waxay u ciyaareen si la yaqaano sidii rag u tababaran ama u ciyaaro difaacyo qadka dhexe ah. Man United xaggooda Cavani waa la soo geliyay. Cavani inkastoo u baahnaa in lagu soo bilaabo kulankan maadaama Martial iyo Rashford oo midkood meeshaas in laga saaro ayay ahayd. waayo haddii kubado madaxa la ciyaari lahaa Liverpool chance waa laga heli lahaa, waayo Fabinho iyo Hendersonba tesado kuma wanaagsana. laakiin ciyaar yar ayaa la soo geliyay Martial iyo Rashford. Man United janiskeeda way qaada waysay. waxaan kaloo arkaynay Rashford oo kubadda la cararay meel cidlaa, Cavani u baxay boos iyo Bruno Fernandes dhaheen warna si halkaas la aaday saaxib intee Fabinho iyo Henderson ayuuba dhax ka galeen. janis kale ayay Man United heshay. Pogba ayaa janis darba khatar ku tuuray, waxaa ka seyb gareeyay Alisson. mar labaad Bruno Fernandes aa dhahay aniga markaan isku dayay darb kale Hobriska dhac waa laga bixiyay haddana. dhigeeda Man United waxaa janis ku helay Mo Salah, Mane iyo Firmino. way ka taalay kulankii maantay ee hadda soo dhamaaday. waxaa Thiago Alcantara ayaa ahaa ninkii laacibka Man United ee kulankiisa ugu horreeyay ka ciyaaray Anfield. wuxuu ahaa ninkii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa ama ugu saameynta badnaa markii si loo fiiriyo Liverpool. 4 kulan u dambeysay ama 3 kulan u dambeysay wax goola ama guula maysan soo gaarin. marka Liverpool waxaan dhihi karnaa guushii wadadii loo maraayay ayaaba ka habaabatay ama meel kale ka martay, waayo Mo Salah iyo Mane kubadda ma isku baasaan. labadooda waxaa u shiday Radio Africa. waxay ku xisaabtamayeen sanadka markuu dhamaado iyo laacibka Africa qaadaya. waa rag ku xisaabtamaya Africa iyo laacibka Africa sanadka heli doono. kuma xisaabtamayaan horyaalka ama kooxdiina maxaad u qabanaysaan. Liverpool waxaan dhihi karnaa meesha waxaa problem ka haysto waa Salah iyo Mane
kubadda nin waliba inuu qof kale ku dhafsado ama jaaniso u abuuro lagama yaabo meeshaas waxaa ka khasaaray ama jaanis abuuridii lameed ay Liverpool ku dhaqaaqaysay ama saddexdii hore Liverpool khatarta ahaayeen uu burburay sanadkan waan aragnay dhowr kulan oo Mo Salah la bedelayo dhowr kulan oo Mane loo soo taagayo calaamada ama bench lagu soo bilaabayo Firmino sidoo kale asigana bedel loo soo taagayo sanadkii hore iyo sanad kasii horeeyay Liverpool saddexdaas waxay ahaayeen dadkii loogu cabsida badan yahay ama saddexda weerarka ugu halista badan ee Yurub ka ciyaarto waayahay kulan kale ayaa hadda soo dhamaaday Manchester City ayaa ku badisay 4 gool iyo waxba Manchester City waxay soo hiigsatay kaalinta labaad Liverpool waxay u dhacday kaalinta afraad Chelsea warkeeda ba sheegin waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad waayahay Manchester City 4 gool iyo waxba ayay mar kale ugu badiyeen kooxda Crystal Palace Manchester City 4 gool iyo waxba ayay ku badiyeen inta lagu maqnaa Chelsea suuq meeqay gelisay 200 milyan Chelsea lacag badan ay qasaarisay Chelsea sanadkan way kacsan tahay qarash badan ay gashay Man United horyaalka 3 dhibcood ku wada Liverpool ayaa sanadkan iska mar labaad horyaalka ayaa loo saadaalinaya Manchester City waa la soo socda dhac kaalinta labaad ayaa la soo fadhiistay mid ku darso kulan ayaa baaqi ah haday badiyaan kulankaasna ayaay horyaalka waxay ku qabanayaan 1 point hada war ma yaalo xertii Sheikh Mansour way soo fadhiisteen lacagtii Abu Mansour abti wala soo fadhiisiyay Guardiola tartiib xariif waa sidoo dhaawac horyaalka bilowgiisii dadka dhaawac sidoo ugu maqnaayeen ayra la soo wada kacay dhac Guardiola wuxuu yiri horyaalka wax ka xiga ma labano last 5 game ku dhameeyay Guardiola waxay dhaliyeen 20 gool ku dhawaad marka waxa dhigi karnaa Guardiola safety galka ayuu kala baxay wixii hadda ka dambeeyo wuxuu rabaa inuu horyaalka kor ku qabsado waan aragnay Liverpool oo dhibco iska khasaarinayso waan aragnay Chelsea oo dhibco iska khasaarisay Tottenham oo lagu tirinayo sanadka Mourinho inuu wax fiican u qabanayo iyo Man United oo qaado waayay jaaniskeeda marka Guardiola jaaniskiisa iyo Manchester City waxaan u maleynaa sanadkan inay qaadi doonaan beben ee horyaalka dof ugu dambeyn kooxda Chelsea oo kusoo badisay away kooxda waxay u baxday Fulham ama darbigii ugu adkaa ama ugu dhawaa ee la isku baxo waa Fulham iyo Chelsea ayaa Fulham ugu adkaatay 1 gool iyo waxba waliba mid ku darso kooxda Fulham waxa rad ka qaatay kaaf taamkii hore ciyaaryahan kamid ah kooxda Fulham lagu magacaabo Robinson marka Chelsea sanadkan lacagta la geliyay iyo meeshay taagan tahay isma lahan waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad allo sahla muraha xaalkeeda ma wanaagsano Frank Lampard goore isku dhici doonto ma ogin in hawada laga saari doono inuu kalaabka sii joogi doono mid ku darso kooxda wuxuu u bixi doonaa Leicester City ayuu aadi doonaa Tuesday night Chelsea xaalkeeda waa allo sahal هذا ورا جردونه ويش كله يرو واي هاي dhinaca kale Tottenham ayaa ka badisay kooxda Sheffield United 3-1 ay away ku soo badiyaan Tottenham marka Tottenham xaalkeeda waa iska bramber waxay ku jirtaa kaalinta iska dhaxadka waa kaalinta shanaad habeen waxa wada ciyaari doona Arsenal waxay soo dhaweey doontaa Newcastle Arsenal waxaan ku jirtaa kaalinta 11aad still ayadoo ka badisay Chelsea Arsenal oo soo laabtay muddadii guush ku soo laabteen wili dhibcihii ilan jugti loo geystay ayaa zaida jugti si loo gooday wili hoose joogan haday badiyaan xataa korba u soo kicilaayeen marka Arsenal iyo Newcastle waxay ciyaari doonaan habeen dambe inta soo gabagabana muuqaalkayga maanta inta soo ku dhow yahay hadii aad kooxda taageertid iyo fan kooxda u tahay ila wada commentigaada sidaan isbuuca dambe aan u soo jajarno ama aan u soo faanino ama aan wax ka soo dhahno insha Allah ila wada teamka aad taageertid sanadkan yaad u saadaalinaysaa afarta kooxood ee horyaalka kusoo bixi doonto Champions League iyo kooxda qaadi doonto horyaalka yaad u saadaalisay horyaalka sidii la mooday iyo si kale hore loo yiri ninna si u qaaday waraf iyo shimbir kala warla sanadkan la isma dhahayn Manchester City marka horyaalka bilowday Manchester City hoose ku jirtay saaxib ayaa hadana dhac labo waa wareey inta kusoo gabagabayna muuqaalkaygii waan ku mahadsantahay daawashadaada hayloomina subscribe saartid hayloomina like-taada waa inoo muhiim comment ila wadaag kooxda taageertid iyo meesha ay ku jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu